بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وزيرك أهلا لطليها مدحوينها مامور كولة هيرشبيلة قسمها سفيرك الدنيا دلمدة أخيارتا جالية قيمة هذا كالدول لها لنيرة وضياشة runtii qiimaha badan dhammaan dadka meelaha fog ka yimid asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. runtii aniga caawa farxad ayay ii tahay inaan ka soo qayb galo munaasabadan aniga oo runtii maqribkii ka hor imid runtii lagu soo dhaweynayay odageena saaxiibkay wasiirka ah nabad taliyaha aad iyo aad ay runtii igu tahay farxad inaan intaano runtii odayaal ah iyo gabdho dhalinyaro aan la kulmana runtii waxay iisii tahay farxad kale. dabcan wasiirku hirshabeelle kaliya wasiirka ma ahayn markaan runta idin sheego wuxuu ahaa asaasaha dadkii asaasuu ka mid ahaa hirshabeelle nabadeyntii iyo dib u heshiisiintii iyo runtii duruufihii adkaa ee maamulkaasi ku dhismay dadkii runtii kasoo shaqeeyey dhexda waa usoo xirtay dadaal badan runtii kasoo galay ayuu ahaa ilaa haddana runtii sidaas u shaqeynaya haddana guddiga dib u eegista dastuurka soo diyaarinaya oo guddiga dastuurka qaranka ayuu ka mid yahay. annagana hadda ogtiin xildhibaan kasta ma ogtahay meel buu maaragtay salka ku hayaa marka meeshiina laga soo doortay dadkii la soo dhisuu ka mid yahay. waxaa dhahaan annaga cid muddo in la yidhaahdo waxaa jirta bowleeno waxay dhahaan mudullo ninkii dhisaa ka weyn marka dadkii soo dhisuu ka mid yahay duqu intaas kale maaha xildhibaanka dadka soo dhisuu ka mid yahay. intaas kadib walaalayaal munaasabad waxaan ku jirnaa bishii ramadaane waa barakadeeda ilaahay subxaana watacaala waxaan ka baryaynaa inuu naga aqbalo waana isugu hambalyaynaynaa ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu nagu daro kuwa naga aqbalo loogu dambi dhaafo naartana looga xoreeyo. runtii wixii ku saabsanaa siyaasad wasiirkan ka hadla dadkana sida aan u sheegay siyaasadayda ka shaqeeyaan hadday gudaha joogaan iyo dibadda joogaan wax hadda siyaasadda dalka ku seegaaba yaraatee ma jirto laakiin qofkii yimid waxbaa la bidaaya intii ay ahayd in la sheego wasiirkaa sheegay. hal kelmadaan rabaa inaan ku daro oo runtii aad iyo aad muhiim u ah dalka duruufta adag oo uu soo maray idinka laftirkiina waad ogeydeen dhib badanaa runtii idinku qabtiin markaad qurba joogtihiin. waxaan aaminsannahay inaad dalka nooga walwal badan tihiin nooga laxajaclo badan tihiin dhibaatada dalka ka dhacdahay idinka saamaynta ay idinku yeelato inay ka badan tahay saamaynta dadka gudaha jooga runta ay ku yeelato. dhigtiinaa taagan in badan oo ka mid a waxaa laga yaabaa inay breshar runtii uu ku dhacay say dalka xaaladiisa taas marka wixii keenay waa kalgacaylka iyo wadaniyadda iyo soomaalinimada iyo qaran jacaylka iyo dowlad jacaylka ay ku jira asalka ah. waxaan rabaa marka inaan idiin sheego hadda xilliga la joogo runtii waa xilligii ay ugu fiicneed uguna rajaha fiicneed dowladnimada soomaaliya. dhaliil mar kasta waa jiraysaa wax dhammaystiran mar walba ma jiraan wax boqolkiiba boqol ma jiraan. waxaana markii la qiimeynayo waxaa fiican in lagu qiimeeyo shalay meeshii la joogo laakiin haddaan ku qiimeyno saan annaga jeclaanahay sidaan annaga jeclaanahay waxaa laga yaabaa inaan si fudud lagu gaarin waqti badan iyo juhdi badan iyo dadaal badan runtii inay u baahan tahay. laakiin markaan fiirino sidii la ahaa 10 sano ka hor 7 sano ka hor 15 sano ka hor iyo maanta meesha la joogo markii la fiiriyo runtii waxaad dareemi kartaa dadaalka la bixiyey iyo meesha la soo gaaray. dowladnimada soomaaliya runtii waa qoray isu dhiib waa dalkaas dhibaataduna ay ka dhacday 30 iyo dhowrka sanana burbursanaa haddana ilaa intaasoo jeera doorasho nabadahay ka dhacday si nabada xilka la isugu wareejiyey madax la doortay ee dalka madax ka noqdeen. intaas kaliya maahayn haddana marka waqtigooda dhamaaday ay haddana iska wareejiyeen. intaas laftigeeda markii si sax loo qiimeeyo dal burburay markii la fiiriyo oo kalsoonidiisi baaba'day wax badan isdilay markii la fiiriyo inay isdoortaan waxay muddada ay ku heshiiyeenna haddana ay maaragtay yani isku wareejiyaan xilka wax weyn oo runtii horumar ah oo haddii lagu xisaabtamo wax badan ee runtii lagu qiimeyn karo waay. intaas waxaa dheer mar kastoo la yimaado qofka timaado waxbay qabanaysa meela la soo gaarsiinaya. waxqabadka hadda ugu dambeeyey oo uu ka hadlay wasiirka la taliyaha madaxweynaha runtii 2 sano hadda la soo dhaafay wax badanaa runtii aan la qabtay wixii la qabtayna xoogaal ayaad u tihiin dalku waa og tihiin ilaa markii oo xorriyadda qaatay intii ka dambaysay dayn ku aruureysay
ayaa jirtay oo u diidaysay inuu horumar sameeyo inuu deyn kala qaato inuu maaragtay yani isticmaaraad iyo waddanka maalgashi inuu sameeyo taas marka ilaahay maadiis muddo dheer laga soo shaqeynayay laakiin labadii sano hadda wayba wax ka dhiman yihiin ayaa lagu guulaystay deynta laga cafiyo sidoo kale waa ogtihiin cunaqabateyntii ugu dheereed oo dal abid la saaro dal oo ku saabsaneed hubka ayaa Soomaaliya muddo dheer saaray 32 sano inuu la dagaalamo shabaab iska celiyo dadku shabaab iska celiyaan cadow kastoo ku soo duulay iska celiyaan waxay u baahan tahay inay iskubayaan hub inaad heshaan u baahan tahay marka cadow waa gumaysan yahay adigana aad hub soo iibsan karin aadan maaragtay yani fasax u qabin waa dareemi kartaa culeyskeeda marka dowladda Soomaaliyeed waxay ku guulaysatay in cunaqabateynta hubka la qaado taasoo macnaheedu yahay inay hub soo iibsan karto ciidan qaran dhisan karto xuduudaheeda difaacan karto dowladnimadeeda soo ceshan karto intaas kaliya maaha waxaad ogtihiin dadka Soomaaliyeed waa dad runtii aad u firfircoon ganacsiga iyo hal abuurkana aad ugu fiican intii burburku jiray waxay ka sameeyeen dhaqaalo waaweyn bay ka sameeyeen runtii Afrika qaybaheeda kala duwan dhaqaalahoodu laakiin difaac ma haysan markasta waxaad maqlaysay dad la iska dhaco hantidooda la wareego dowladaha ay ka shaqaysanayeen ma haysan wax qawaaniin difaacda ma haysan waxaa lagu guulaystay hadda in lagu daro dadka Soomaaliyeed East African Community taasoo keenaysa inay wixii hore u haysteen oo ganacsi ahaana ay maaragtay u helaan maaragtay yani difaac ay u nabad galaan wax kale iyo halabuur kale in la yimaadaan taasna waxay ahayd runtii waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa dabcan ugu dambeysay sida hadda uu ka dhawaajiyay wasiirka dastuurkan oo aad ogtihiin inta uu yahay kumeel gaarka uu u baahan yahay dhamaystirka hadda nin kastana wuxuu dhihi jiray waa dhamaystirayaa laakiin waa lagu dhici waayey waxay keentay marka hadda in lagu dhiirado qaylaa jirta runtii la iskuma waafaqsana 100% laakiin de dunyada aad joogtiin oo dimuqraadiga wax 100% la isku waafaqsan laguma shaqeeyo dadku waxay ku maaragtay yani ku kala baxaan aqlabiyad iyo waxay ku kala baxaan iyo maaragtay yani in la istiido intii markaas tirada badan ay rabto ayaa qaanuun noqota sidaasaana sharci noqota in lagu dhiirado marka oo la bilaabo oo maaragtay yani la yiraahdo dastuurkii dib maaragtay yani loo dhamaystiro waxaan u aragnaa inay tahay tallaab runtii hore loo qaaday doodaha ka jirana annagu waxaan aaminsanahay Soomaaliya waxaa la soo maray xilli qofku wuxuu diidan yahay xabad uu ku cabiro oo baroonkiisa iyo maaragtay zuugiisa banaanka inta soo dhigto waxba soo hurguf laakiin maanta afka laga hadlaya qofkii zuuga afkiisa u noqday marka in marxaladaas la soo gaaray oo ninka diidan oo u arka inay khalad tahay xilligan wax dhamaystiro ama qodobada qaar in maaragtay xilligan laga hadlo qofka qalad u arka codkiisu cabiraya idaacadu tagaya shil jiraayadu qabanaya wuxuu waxaas khaldan kii arkay inay sax tahay asna codkiisu cabiraya marxaladaas la soo gaaray laftirkeeda markaan Soomaalinahay oo ognahay waxaan dhibaato qabno inaan heerkaas soo gaarnay oo maanta waxaan ku kala cad goosanayna ay tahay axzaab wali ma aanan gaarin laakiin codkeena inuu qof walba uu ama social media ha galo ama shir jaraa'id ha qabto ama idaacada ka hadlay ayada laftirkeeda waxaan isleeyahay waa marxalad runtii la soo gaaray sida uu wasiirku sheegay go'aanka ugu dambeeya baarlamaanka iskale markii la soo dhameeyo chapter 4 oo hadda socda oo ka kooban runtii qodobo culus oo siyaasi ah oo ay dhici karto in ay ku jiraan waxyaabo dalka habkana hanaanka dawladnimada wax ka bedelaya markay dhamaato waxaa loo gudbayaa in loo codeeyo xildhibaanadu markay codkooda dhiibaan aragtidooda ku daraan waxay u arkaan khalad ay dhahaan waxaas waa khaldan yihiin waxay sax u arkaan soo kordhiyaan kadib waxaa ku xigaysa in loo codeeyo tuutaad ayuu u baahan yahay yani haddaan la helin 3 meelood oo labo ma ansixi karo marka waxaa ka dambaysa markii akhrintu dhamaato oo maaragtay ay dhamaato wax ku darista iyo wax ka dhimista iyo wax ka bedelku markay dhamaato waxaa ku xigo inay maaragtay 3 meelood oo labo u codeeyaan taas ayaa haddana ku noqonaya sharci kadibna de afti aad ogtihiin ayaa kasii dambaysa marka procedure-kaasaa walaalayaal socda dalku marka wuxuu marayaa marxalad runtii aan isleenahay waa meelihii ugu habboonaa codadka aad maqlaysaan iyo dadka qaylinaya mucaaradka iyo annaga waxaan u aragnaa daahida saxiixa inay tahay in la hadlo oo la dhaho waxaas waa khaldan yihiin waxaas laga joogo waxaas saasay ku xun yihiin haddaan bal la isdilayn xabadna la isku ridayn aagagna inta la kala xirto aan maaragtay yani xabad la iskala daalayn annaga waxaan u aragnaa inay tahay horumar codkiisa qofku inuu dhiibto aragtidiisa uu dhiibto laakiin ugu dambeynta waxaan ku kala baxaynaa sida adduunka oo dhan uu ku dhaqmo cod ayaan ku kala baxaynaa madaxweynaha hadda markuu ka hadlayo mashruucan
meelo badan uu ka sheegay dib u eegista dastuurka waxa hadda la ansixiyo dowladdan kuma shaqaynayso waxaa ku shaqaynaysa dowladda ka dambaysa waxaa loo diyaar garoobayaa 4 sano markay dhamaato cidda markaas loo doorto ilaahay xukunka u dhiibo ayaa ku shaqaynaysa haddii la dhihi lahaa waxaana waxay dhaqan gelayaan 4 sano iyo 2 sano dambe dhaqan gelayaan haddii la dhihi lahaa waxay noqon lahayd wax badan oo runtii loo arko qof shaatigiisa tolanayo inuu yahay laakiin haddii munaasabado badan uu ka sheegay madaxweynuhu meelo badan laga sheegay war waxaan hadda aan dhaqan gelin oo ansixino waxay la bilaabanaysaa dowladda ku xigta waxaan isleeyahay wax badan oo runtii lagu kalsoonaa karo dadka Soomaaliyeed intooda badan way isku waafaqsan yihiin inta maqanna waa laga dhan yahay waa laga tashaday cid ma jirto wali waxa socda dadaal lagu keenayo lagu qancinayo la isku dayayo in geedi socodkaas ee runtii lagu soo biiriyo waana rajaynaynaa insha Allah taala hadda Puntland ka maqan si rasmi ah oo aan hadda qayb ka ahayn ee golihii wada tashiga qaranka go'aamada ka soo baxay laakiin haddana waxaa socda dadaal runtii ayada laftirkeeda lagu soo biirinayo inay ku soo biirto taasna insha Allah taala waxaan rajaynaynaa inaan ku guuleysano guud ahaan marka marxaladda hadda socotaay waa marxalad runtii aan isleenahay arma hore loo socdaa waxaan rajaynaynaa insha Allah taala in aan wax badan ay soo kordhaan fatradan waxyaabo badan oo runtii baarlamaankan hadda aad ogtihiin duruufaha uu ku yimid iyo sida lagu soo doortay iyo sida uu ku yimid qaar waxaa isaga jiray magaca lagu qoray oo aan xataa tartan loo gelin alxamdulillah dadka loo tartamaan kamid ah kursigaygi si rasmi ah loo qoray dadka iska ah u tartamay laakiin hadda qaar badan waxaa jira loo tartamay baarlamaankii saas loo dhaliilay waxa uu qabtay oo sharciyad ah inta sharci oo ansixiyay wax la maleyn karo marka waxa waaye badbaadada naafica wax badan oo la filayo in balaayo ay ka soo socoto ayaa ilaahay khayr ka keeni karaa baarlamaankan 11aad waa baarlamaanka ku dhiiraday shuruuc 10 sano ka badan tiilay baarlamaanka ansixiyo shuruucdii la dagaalanka argagixisada kamid ah waxa kamid ah cunaqabateynta maaliyadda dadban waxa kamid ah sharciga isticmaalka iyo maaragtay yani maalgashiga shuruucdaas oo dhan way iska tahay meeshii tiilay baarlamaanka waa lagu dhici waayay in la keeno la ansixiyo marka xildhibaanadii ku guuleystay shuruucdii baarlamaanka 10 sano tiilay in maaragtay yani baarlamaankii ansixiyay horta baarlamaanku way doonaan marka waxaad ogaatiin say u daran tahay umma alla la dhihi jiray moogta baarlamaanku soo u liitay markii la soo xulaayay markuu shaqada qabtay saas ma noqon wax badan insha Allah taala haddana waa qabanaya sharciga waxaa kamid ah maaragtay hadda maaragtay maxaa la yiraahdaa sirdoonka qaranka waa ogtiin weligeed sharci looma sameeyo waxana markay bilow yihiin maaha in wixii ugu fiicnaa la samaynayo maaha laakiin in wuxuu la sameeyo waxay suurto gelineen in wixii la sameeyo biri laga amba qaado wixii ka dhiman lagu dabo dib u eegis lagu sameeyo waxaana soo baxay halkaas laga tagay kana laga ilduufay waa lagu soconaya adduunka wax ayagoo dhameystiran oo kaamil ah dhasha ma jiraan shuruucduna waa ogtiin say ku sameysmaan sidoodaba duruufta markaas jirta wixii markaas munaasib u ah ayaa sameysmaya haddii laga gudbo marxaladaas marxalad ka fiican la gaarana shuruucdii waa lagu noqonayaa wax marxaladaas la joogo munaasib u ah ayaa laga dhigaya marka dadaalkaas socdo idinkana runtii aad ugu mahad celinaynaa waxaan isleenahay jaaliyadaha Soomaaliyeed waxay leeyihiin dowr hadduu hagaago oo jaaliyadaha Soomaaliyeed ay hagaagaan kuwa gudahuna waa hagaagaya waa ogtiin burburkii qaybtaad ku leeyahay dhismahana qaybaad ku leeyahay burburkii qaybtaad ku leeyahay markaan leeyahay idinku dalka ma burburina laakiin telefoon hadduu soo dhaco reerebel qaaranka hal aruuriyo waa ogtiin saacadii inta lagu uruuri jiro ogtiin haddii marka maanta la yiraahdo midnimo Soomaalinimo qarannimo dawladnimo aan isu wada taagno midkii telefoonka xataa ku soo khaldamo waxa la kara wareer dadka dhinac kala marka idinku midowdiin isku xirnaatiin aad maaragtay iskaashatiin midnimo iyo maaragtay yani isku duubni aad idinku muujisiin gudaha waxay ku noqonaysaa wax fiican oo gudaha runtii wax u taray noqonaysaa maxaa yeelay haddaan gudaha waxa ka socda halkan laga dhiirigelin gudaha kaligood waxba kama qaban marka waxaan isleeyahay waxaan idin dardaarmaynaa inaad isku duubnaataan inaad midowdaan inaad Soomaalinimada xoojisaan qayb iyo qolo iyo maaragtay gobol waxba waa lagu keenay waxa asal ah dadkan waa isku mid waa hal qowmiyad Soomaali waa isku af waa isku diin waa maaragtay yani dad iswada dhalay waay nin oday hadda kor waxa la Soomaali maxay isu jirtaa hal weydii Soomaali maxay isu jiraan dhalasho ahaan markaas uu intay iska warsadaan isu jiraan hadday is warsadaan waa isku soo wada dhacaya waa dad saas marka waxna kala soocana ma jiraan waxaan ku kala duwanaana ma jiraan diinteenu waa mid waa diinta islaamka
وحنا دد مسلمين أو سنيين هنا الحمد لله رب العالمين بس كل قضاء يسود النلي وحنا سلنا هي دي أمة مدنمو يعني وحي يكون بيدوب لها يعني أي هل هذا جرت أمة شيء أمة الصومالية وحنا سلنا هي واحد دعي 10 نقول دونا مستقبل كان إن شاء الله تعالى واحد من حقيقينا هذه هذا رنتو ما سنتين دوميها مكانوا ما دعينايا وحن رنتي هذا ربائنا أيضا ما دعينا دولة السودان ورنتي قدوميها لقيها برلمان كذي الوجرة قرياش الدجاج الوجرة رنتي إنسان حقوق الصوماليين قفصة أو مارك الموجية يعني إنه ليه كرته قامنا إن العقبات كانوا لورقين لو فدودي وهو مرينا وما علينا دولة رنتي وهم سنة دولة الصومال كالمين وبكمتها أو آدي رنتي دولة دعم الصومال كمتها وهم علينا ودوميها مسيرنا أساسي كتدون هذه لا يدم سفير كان هذا ما سيء فمانتي محل الله هاي آدي هذا يكون هذا علينا رمضان كريم كل عام وأنتم بخير تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته